daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh oo aad loo soo tibinaya maalmihii la soo dhaafay ciidamada Burundi oo qiratay in 12 askari ay ka xasuuqeen ciidamada al-shabaab ayaa dhankeeda sheegatay in 14 askari Burundi ay dileen laakiin maanta war ay soo saareen Burundi ayaa xaqiijisay in 12 askari ay kaga dhinteen weerarkii maalin ka hor halkaasi ka dhacay duleedka magaalada Balcad haddaba wararkii ugu dambeeyay daawadan dhageysanaysaan ama daawanaysaan subscribe saar oo gobolka fur dawladda Burundi ayaa war ka soo saartay weerar in ka badan 10 askari loogu dilay oo maalin ka hor ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana jidgooyo loo dhigay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi oo jidgal ahaa loogu dilay ilaa 12 askari oo ka mid ahaa ciidamadooda ka howlgala gudaha Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgallada AMISOM sidoo kale sarkaalkan ayaa shaaciyay in weerarkaas loogu dhaawacay 6 kale isagoo sheegay in xilliga uu dhacayay ay ciidamada wateen howlgallaha amni xaqiijin ah sida ay warka u dhigeen nasiib darro 12 ka mid ahaa ciidamadeena ayaa la dilay 6 kalena waa la dhaawacay xagjiriinta al-shabaab ayaa weeraray kolonyo ka tirsan ciidamadeena oo ku sii jeeda magaalada Jowhar kana ambabaxaya magaalada Muqdisho ayuu yiri sarkaalkan wakaaladda wararka la hadlay sabdidii la soo dhaafay ayay ahayd markii agagaarka deegaanka Kololey dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay ku weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada dawladda Burundi ee ka howlgala qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ee fadhigoodu yahay magaalada Jowhar al-shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi in ay ku dishay ilaa 14 askari kuna dhaawacday tiro intaa ka badan sida ay hadalka u soo saareen ama warbaahinta al-shabaab daabacsan ay ku soo qorteen inta badan ciidamada AMISOM ayaa weerar dhabagal ah kala kulma al-shabaab xilliyada ay isaga kala gooshayaan Muqdisho iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe shalay ayay ahayd markii war la soo saaro la dhahay wadada ugu khatarta badan Soomaaliya ay noqotay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar hase yeeshee ciidamo badan oo AMISOM halkaasi ku dhintay shalay dorad maalintii ka horeysay qaraxina halka lala eegtay sidoo kale al-shabaab ayagana aad loo xasuuqay sida ay wararka sheegayeen ama wasiir ka tirsan Hirshabeelle uu shalay sheegay in halkaasi al-shabaab xasuuq ba'an loogu geystay kadib markii ay weerar dhabagal ah soo qaadeen halka naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi ah